maxay tahay sababta keentay in ruushka uu ku duulo dalka Ukraine uusan ugu duulinba dalka Finland yani haddii aad fiirisid sababaha keentay in ruushka uu ku duulo dalka Ukraine waxa ay tahay Ukraine waxa ay doonaysay inay ku biirto gaashaanbuurta NATO ruushkana waxa uu ka soo horjeeday in dal dariskiisa ah uu ku biiro isbahaysiga NATO yani wuxuu aad u diidanaaba in ciidamada isbahaysiga NATO ay imaadaan xuduudihiisa isla arrinka oo kale waxa sameeyay dalka Finland yani Finland dhawaan waxay ku biirtay gaashaanbuurta NATO Finland iyo ruushkana waxa ka dhaxaysa xuduud aad u balaaran waxaan lagu tilmaamaa mid ka mid ah xuduudaha ugu weyn qaaradda Yurub haddana Finland waxay ku biirtay gaashaanbuurta NATO dowladda ruushka wax falcelin ah arrinkan kama aysan sameeynin maadaama ruushka iyo Finland ay ka dhaxaysa xuduudan aad ku balaaran maxay tahay sababaha ruushka ugu falcelin waay arrinkan uuna ugu falceliyay arrinta Ukraine maadaama Ukraine iyo ruushkana ay wadaagaan xuduud Finland iyo ruushkana ay xuduud wadaagaan arrimahan oo dhan muuqaalkan ayaan kuu sheegi doonaa adigana waxaan ka codsanaya inaad muuqaalka like garayso page-kana aad soo follow garayso aad iyo aad ay u mahadsantahay sababta ugu horeysa ee la isdhigi karo ruushka oo uu ku duuli waayay dalka Finland waxa ay tahay in Finland iyo ruushka xuduud ka dhaxaysa ay tahay xuduud aad u adag yani juqraafi aad u adag ayaa ka dhaxaysa labada dhinac yani xuduudda labada dal ka dhaxaysa haddii aad fiirsid waa xuduud ay ku yaalaan harooyin aad u fara badan uu yahay dhul barafka jiifa yani dhul qabow uu yahay in adag tahay in duulaan dhanka dhulka ah lagu galo ama ciidamada raashaanka ah ee duulaan dhanka lugta ah ay ku qaadaan dalka Finland yani juqraafigeeda ayaa aad u adag sababta labaad ee la isdhihi karo waxa ay tahay Finland markii ay ku biirisay gaashaanbuurta NATO ciidamada raashaanka intooda badan waxay ka dagaalamayeen dalka Ukraine ruushka inta badan wuxuu diiradda saarayay in uu guulo ka keeno dalka Ukraine oo dhulal fara badan uu qabsado kadibna uu guul ka gaaro dagaalka kala dhaxeeya asaga iyo Ukraine haddana ruushka wuxuu aad u diidanaa in furin labaad isku furo maadaama hal furin ay hadda ku furan tahay taasoo keeni karto inuu dagaalka sii bilaarto kuna fido qaaradda Yurub arrimahan oo dhan ay hormuud u tahay arrimaha juqraafiga iyo qaabaysinka ay u yaalaan xuduudaha labada dal ayaa keentay ama aad u adkeysay in ruushka uu ku duulo dalka Finland kaasoo dhawaan ku biiray gaashaanbuurta NATO aragtida qaybta commentiga nuulo wadaag muuqaalkan like garee page-kana soo follow garee si aad u heshaan macluumaad xiiso badan oo dunida ku saabsan aad iyo aad ay u mahadsantihiin